Asalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan rabaa inaan idiin soo koobo filimka lagu magacaabo School Iceland. Filimka waxa uu ku bilaabmaya 1973 halkaas waxaan ku arkaynaa nin lagu magacaabo Bill kaasoo ah madaxa shirkad samaysa saameynta. waxa uuna soo gelaya aqalka cad asagoo hadafkiisu yahay inuu ku qanciyo madaxda halkaas joogta qorshihiisa. waxa uuna u sheegayaa in uu soo helo meesha ay ku taala jasiiraddu. sidoo kale waxa uu ka dalbanayaa madaxda in ay siiyaan lacag sidoo kale koox ku wehelisa safarka. marka hore madaxdu waa ay diidayaan laakiinse waxa uu sheegayaa in ay koox ruush ah dabagal ku hayaan jasiiradda. haddii ay ogaadaan ayagu ay heli doonaan hantida ku qarsoon jasiiradda isla markaasna madaxdu ay ogolaanayaan qorshihiisa. intaas kadib madaxdu waxay diyaarinayaan tiim saamin ah kuwaas oo saaminaya jasiiradda waxaana hogaamiye una ahaa nin lagu magacaabo Beckett. sidoo kale tiimka waxaa lagu daray nin khabiir ku ah helidda iyo hagidda waddooyinka kaasoo lagu magacaabo James. intaa kadibna waxaan arkaynaa in tiimku diyaar u yihiin inay ku safraan jasiiradda waxayna soo raacayaan markab ayagoo usoo jihaysanaya dhankaas iyo jasiiradda. sidoo kale kooxda waxaa la raaciyay sawirqaade lagu magacaabo Mason. kooxduna waxa ay ku raaxaysanayaan jawigooda ayagoo waqtiyo qurux badan ku qaadanaya goobta. muddo yar kadib kooxdu waxay soo gaarayaan meel u dhow jasiiradda isla markiina Bill oo ahaa kabtanka ayaa waxa uu u yeedhayaa kabtan Beckett oo ahaa madaxa ciidanka. waxa uuna u sheegayaa inay hortooda taalo duufaan aad u weyn taasoo ay macquul ahayn inay kaga gudbaan markabka. haddii ay isku dayaan inay markabka kaga gudbaan ay dhammaantood ku dhiman karaan. taas beddelkeedana waxa uu ku dhahayaa waxaan jasiiradda ku gaari karnaa diyaaradaha qumaatiga u kaca kuwaasoo loo yaqaano helikabtarka. isla markaana kabtanka iyo tiimka intiisa kale waa ay aqbalayaan ayagoo ku diyaarinaya in ay jasiiradda ku galaan diyaaradahaas. intaas kadib kooxdu waxay soo dhexgelayaan duufaano waxayna ku dhibaatoonayaan inay duufaanahaas ka gudbaan waxaana agagaarkooda ku dhacaya dillaacyo waaweyn kuwaas oo ku sababaya kooxdu inay cabsi galaan. dadaal dheer kadib kooxdu waxay ku guuleysanayaan inay soo gaaraan jasiiradda. ugu dambeyntii kooxdu waxay soo gaarayaan jasiiradda waxayna hortooda ku arkayaan muuqaallo aysan weligood ku arkin dhulka caadiga ah. waxa uuna ahaa mid aad u qurux badan oo cagaaran isla markiina waxa ay bilaabayaan in ay tijaabiyaan jasiiradda ayagoo bambooyin dhulka ku tuuraya si ay u ogaadaan jasiiradda hoosteedu in ay tahay mid ammaan ah iyo in kale. isla markaana waxaa si xoog leh diyaaradda ugu soo dhacaya geed aad u weyn oo aan la garanayn meel uu ka yimaaday. intaas kadibna kooxda oo ku jirta xaalad shoog ah waxaa hal mar si lama filaan hortooda uga soo baxaya gacan aad u weyn. kadib markii ay si fiican u fiiriyeen waxay ogaanayaan inuu yahay goorile aad u weyn kaasoo lagu magacaabo Kong. waxa uuna ahaa boqorka kooxda. Kong waxa uu ahaa boqorka keynta. Kong waxa uu istaajinaya weerarka isagoo u digaya ciidanka si ay u joojiyaan weerarka